ku socoto dadweynaha oo intooda badan afkaartooda ku soo gudbiya qoraal ayaa waxay fikrada ka dhiibteen qaabka ay u rabaan inuu noqdo dastuurka Jubbaland. inta aan la gaarin fikradaha dadweynaha guddiga dastuurka ayaa marka hore dadweynaha uga warbixiyay qaabka dastuurka qabyo qoraalka ee Jubbaland loo ballaarinayo isla markaana fikradaha looga dhiibanayo. idin qaybiyay ma aha dastuurkii oo qoran waa qodobo la isla dejiyay oo la rabo wixii dadkii ka hadlay way ka hadleen laakiin idinka waxay ku hadleen la idin ma tusin waayo waxa la idin ka rabaa wax cusub inaad ama dhahdaan ma rabno waxan ama aad dhahdaan waanu rabnaa waxaanan u rabnaa in amaanka aad wax ka tidhaahdaan cadaaladda aad wax ka tidhaahdaan haddii ilaahay ogol yahay horumarka aad wax ka tidhaahdaan horta waa sidaas hadda waa qalfoofkii nuxurkii la idin ma siinin qalfoofkii kaliya waa dhowr iyo 80 qodob baan u malayn hay'aduhu ka shaqeynaya hay'adda baarlamaanka hay'adda golaha wasiirada xafiiska madaxweynaha waxyaabo noocaas ah ka hadlaya laakiin ma aha wax sharaxan wax inaba ay ku qoran tahay faahfaahin ma aha idinka marka waxa la idinka rabaa inaad dhahdaan haddii xafiiska madaxweynaha laga hadlayo madaxweynuhu hal sano kaliya ha hayo xilka weyn wada xil jecel lahay si uu uga dawo ku kala loo door ama waxa weeyaan baarlamaanku 4 sano ha joogan waxyaabo la mid oo sidaas ah idinka la idinka rabaa taas waa qodobka raba inaan idin sheego oo warqadaha hadda waxaad ka akhridaan oo ku qoran uma jiree waa inaad aragtaan qodobka ammaanka markaad aragtaan maskaxdiina maxaa ammaanka kaga soo dhacaya taas ay isweydiinaysaan oo ka jawaabaysaan waa taas waa qodobka labaad laba qaybood baa loo sameyn karaa waraaqa la idin siiyay iyo buugaag qofku magaciisu qoraya qodobkaasna waxbuu ka dhahayaa wixii ra'yigiisa uu qoraya waajib ma aha inuu dhaho dastuurka waan rabnaa waan wada qaadanay waa sida dadka qaar baa laga yaabaa inay halka u boodaan dhahan warada islaamkaanu rabnaayo kitaabka lagu dhiqay waxaan waxba kama jiraan dadka qaar baa yaa aaminsan waa la heli karaa marka qofku kiyo aamusan hadduu rabo qoraal ha sameeyo magaciisa iyo wuxuu aaminsan yahay taas waa qaab loo soo jeedin karo odayaasha iyaguna waxa la rabaa inay waxa weeyaan ka qayb qaataan oo ay waxay aaminsan yihiin iyaguna ka sheegaan meeshan sidaas darteed waqtiga oo kooban dadka oo sooman annaga oo rabna inaan dib u laabano waxyaabo badan oo hadda lafteeda cirka roob baa ka soo socda marka si aan waqtiga si kooban uga faa'iideysano labada qaab baa loo soo gudbin karaa qofku inuu farka taago oo uu dhaho waxaasan ka aaminsanahay dastuurka waliba qodobka gaarka ah waxaasan ka aaminsanahay iyo inuu waraaq ku qoro oo uu magaciisa soo gudbiyo labadaas qaybood baa la rabaa inaan u sameeyno haddana ku soo dhawaada waad mahadsantihiin waxaan rabnaa ilaahay idankiis haddii ilaahay idmo qof walbi wuxuu xor u yahay fikirkiisa waxa hadda la idin qaybiyay warqadahaas waa qabyo qoraalkii dastuurka Jubbaland way qabyo qoraalkii dastuurka Jubbaland oo aan dhamaystirayn way fikirka idinka soo baxa tiimka waxa jira group la yiraahdo secretary oo wax qoraya waxay qorayaan in qof walbi wixii uu fikirkiisa soo jeediyo waxa way waa laga qoraya waxa la geyn doonaa meeshii wax lagu qorayaa la geyn doonaa fikirkiinu waa muhiim qabyo qoraalkii dastuurka Jubbaland oo aan dhamaystirayn way fikirka idinka soo baxa tiimka waxa jira group la yiraahdo secretary oo wax qoraya waxay qorayaan in qof walbi wixii uu fikirkiisa soo jeediyo waxa way waa laga qoraya waxa la geyn doonaa meeshii wax lagu qorayaa la geyn doonaa fikirkiinu waa muhiim fikirkiinu aad buu muhiim u yahay qof walba waxaan rabnaa qofkii fikir ka qaba waa la idin faahfaahin doonaa qoraalku ku qoran yahay cid akhrisatana wayba akhrisatay haddii kalena waxa jira qodobo la idin akhrin doono qodobadaas markii la idin akhriyo wixii aad fikir ka qabtaan iyo wixii aad fikir ku dareysaan oo aan meesha ku jirin xor baad u tihiin qofna ra'yigiisa lama ceebsanayo qof walba ra'yigiisa waa la qaadayaa waxa la horgeynayaa guddiga qorista dastuurka la horgeynayaa fikirkiinu waa muhiim wuxuu wax tari doonaa Jubbaland buu wax tari doonaa waxaan rabaa inaad marka aad fikirkiina aad si dhaba u dhiibataan ujeedada laga leeyahana waxay tahay in la helo dastuurka dadka oo dhan waxay ku heshiiyeen oo iyagu wada qoreen oo fikir isku darsadeen
oo Jubbaland oo dhan ay wada leedahay ee aan koox gaari qorin inuu noqdo sidaasaad marka fursad ugu yeelateen nasiib baad u yeelateen war labaad iyo mar saddexaadba waa idin mahad celinayaa waxaan rabaa hadalka inuu dhinaceena u bato wixii hadda ka dambeeya hadalku dhinaceena u badanaya idinkaa hadlaya cidda akhrisatay oo hadda ka faa'iidaysatay waa qaybisan soo maaha cidda akhrisatayna wixii uga soo baxay oo ay wax ka qabaaneen waxa weeye waxa jira niman dhalinyaro ah oo qofku gacantu taagayaa markuu gacanta taago waa la qorayaa magaciisa waa loo yeerayaa sidaad u kala horeysaan baa la idin qorayaa qof walba oo maskaxdiisa uu fikir ku jiro gacanta ha taago wiilashaasaa qoraya markay qoraaniin waxa weeye waa sida aad u kala horeysaan baa la idinku yeerayaa fikirkiina baad sheegaysaan waxa aad dastuurka aad ku darsanaysaan waxa aad wax ka qabtaan wixii aad su'aal qabtaan waana weydiinaysaan waa la idinka jawaabaya wixii aad su'aal qabtaan oo aad su'aal ka qabtaanna waa la idinka jawaabaya laakiin waxaanu jecelahay inuu hadalkiinu u bato inaad wax ku kordhisaan oo ra'yi ku darsataan aad iyo aad baad u mahadsantihiin dhanka kale qaar ka mid ah waxgaradka ku dhaqan degmada Badhaadhe ayaa waxay ka hadleen dastuurka iyagoo sidoo kalena soo dhaweeyay in xilligan la sameeyo dastuur midaysan oo ay leedahay Jubbaland degmada Badhaadhe waxay qayb ka noqonaysaa degmooyin dhowr ah oo ay guddigu ka sameeyeen dib u habeynta dastuurka iyagoo degmooyinkaasi gaarsiiyay qabyo qoraalka dastuurka Jubbaland dhawaan ayay ahayd markii guddigu ay howlo noocaasi ka soo sameeyeen degmooyinka Doolow Luuq Garbahaare iyo Beled Xaawo ee gobolka Gedo degmooyinka kale ee harsan ee gobolada Jubbaland ayaa sidoo kale guddiga u qorsheysan inay ka sameeyeen howlo caynkaasi ah